magacaygu Cabdiladiif Cabdilaahi Axmed. Beergan waxaan imiday 2004. macnaheedu ka dhigan tahay 20 sano. Masaajidka beergan imaan baan ka ahay. tir ahaan way badan yihiin tayadoodu, laakiin kulley haddii way adkaan kartaa, haddii ogaalkayga inaan ku eegaa dhici karta. Tayadooda kulley anigu 100% kuma qanacsani tayadooda. waa dhici kartaa, labadu way jiri karaan haddii dee tiradii ay badan tahay. Tayada ayay dhibaato u keenaysaa. dhinac baniaadan baynu naho, dee 100% ma noqon karno, perfect ma noqon karno, laakiin waxaan isleeyahay tabasho badan baa iyo bulshada Soomaalida gudaheeda ka jirta. markaad aragto waaqica Soomaalida iyo deegaanadeena iyo magaalooyinkan aan ku noolahay, markaad aragto yaad ka garan kartaa inay baahi weyn ay jirto. wallahi baahiyo way badan yihiin, laakiin baahiya waxaan isleeyahay malaha ugu muhiimsan generationka ama kunfaca halkan ku dhashay ee Soomaaliga ah ayaa si wadareed u baahan in wax laga wada qabto. af Soomaali ahaan bay iskaga baahan yihiin. qankii in la dhiso, aqoonsigoodii bay u baahan yihiin. qofna keligii taa ma dhisi karo. markaa dad waxaan ku qasbay Soomaalida degan halkan inay Soomaalinimadooda ay ilaaliyaan. islaamnimada ummadda kalena ula simannahay, laakiin innaga waxay noo gaaraa afkeennii Soomaaliyeed iyo aqoonsiga qofka Soomaaliga. wallahi dowladda iyada inaga mas-uula, amnigeeda iyo nolosheena badankeeda iyadaa ka mas-uula. xagga bulshada dee ururadan iyo waxaan qabsanaynana innagaa ka mas-uula, mas-uuliyadda qayb bayna saaran. marka qof walba intiisa inuu kasoo baxun baa ugu qurux badan baa lisleexa. bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay, dagaaladii ka dhacay, kuwii sokeeye ka dhacay, kuwa imika socda, arrin keli haatan iyaan fariinteeda u gudbin lahaayo. nacaybka la faafinaya hala joojiyo, qabaa'ilka la faafinaya hala joojiyo. waa cusuriyad, waa hayb nacaybkaas. wax meel lagu gaadhayaana ma jiro. diin ahaan, qaanuun ahaan, dhinac walba waa u dembi. nacaybka la faafinaya hala joojiyo, xagga wanaagsan ha loo kaco. wax wanaagsan oo fara badan oo leenahay baa jira. marka kuwa dadka isku diraya, dadka kala joojinaya, kala xirxiraya, in laga hor yimaade xag jirka ayaan anigu kolley yaan jeclaan lahaa.